Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Isku soo noqod wacan oo wanaagsan mar kale bahda ku xiran kanaalkeenan Bara Luqad Academy. Ku soo dhawaada casharkeenan maanta oo aynu ku baran doono topic about my town, mawduuc ku saabsan magaaladayda. Haddaba ka hor inta aynan u gudagalin casharkeenan, fadlan waxa aynu kaa codsanaynaa laagtaada haynala dhaafin. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna waxaanu ku leenahay soo dhawow oo subscribe tahayna la seegin. Waa hagaag markana aan u gudagalno casharkeena. First ugu horeen, my town magaaladaydu is a big town, waa magaalo weyn. First, my town is a big town. Ugu horeentii magaaladaydu waa magaalo weyn. Town waa magaalo. It is famous, waa caan. Famous waa caan. It is famous waa magaalo caan ah micnihi. For a big markets, waxay caan ku tahay suuqyo waaweyn. Markets waa suuqyo. Those are kuwaasi oo good for ku wanaagsan shopping, dukaamaysiga. Ereyga shopping waa dukaamaysi. My town magaaladaydu waxa ay leedahay a big airport. Elaboor weyn ayay leedahay. Airport waa elaboor, whichkaas oo lands ay soo caga dhigtaan a lot of planes, duyuurado fara badan. Ereyga a lot of ama a lot of waa badan, planesna waa duyuurado. In every day, maalin daily ah ama maalin waliba ay soo caga dhigtaan. My town magaaladaydu waxa ay leedahay a big seaport. Dekad weyn bay leedahay. Seaport waa dekad. Airportna waa airport. So seaport marka waxay leedahay magaaladaydu dekad weyn ayay leedahay. Which taasoo comes ay yimaadaan constantly, si joogta ay u yimaadaan. Ereyga constantly waa si joogta in many ships, maraakiib fara badan. Ships waa maraakiib. Haddii esta laga reebo se waxay noqonaysaa ship oo ah hal markab. Those are bring, kuwa oo keena. Bring waa keenid. Those are bring, maraakiibta oo keena. Different goodies, badeecooyin kala duwan. Different waa wax kala jaada ama kala nuuca ama kala duwan. Goodiesna waa badeecooyin. From the world, iyagoo ka keenaya halkee. From the world ayay ka keenayaan dunida inteedii kale. Anda iyo it is the busiest city, waa magaalada ugu mashquulka badan. City waa magaalo, busiestna waa mashquul ama ugu mashquulsan. So marka waxaa leenahay it is the busiest city weeye, waa magaalada ugu mashquulsan in my country ee wadankayga. It is the capital. It is waa the capital weeye, caasimada of the country ee wadanka weeye. In many tourists, dalxiisayaal badan. Tourists waa dalxiisayaal. In many tourists, dalxiisayaal badan. Come ayaa yimaada every year, sanad waliba. For sightseeing, iyagoo u yimaada daawasho. Iyagoo usoo daawasho taga. Sightseeing waa daawasho. My town magaaladaydu waxa ay leedahay several natural resources, ilo fara badan oo dabiici ah. Several natural resources, ilo badan oo dabiici ah. Several waa badan, natural waa dabiici, resourcesna waa ilo. My town magaaladaydu waxa ay leedahay several natural resources, ilo badan oo dabiici ah, which kuwaas oo millions, malaayiin of dollars oo dollar ah intergeliya ama soo geliya the country wadanka as income, qaab dakhli ahaan u soo geliya. Income waa dakhli. So sidaa darteed anigu kaan call waxaan ugu wici karaa ama aan ugu yeedhi karaa my town magaaladaydu is iyadu really dhab ahaantii inay tahay lovely city, magaalo la jeclaysan karo. Lovely city, magaalo maxay la jeclaysan karo.
Even you can say you are a lovely boy. Aduu waxaa tahay wiil la jeclaysan karo markaad dhehaysid. You are a lovely girl. Aduu waxaa tahay gabar la jeclaysan karo. You are a lovely mother. You are a lovely teacher. So ingiriisku waxa weeye wuxuu u baahan yahay more practical. Akhrin badan ayuu kaa rabaa iyo maxay dhegaysi badan iyo isku day badan iyo inaadan ka caajisin.